Soomaaliya oo ka mid ahayd dalalka Carabta ee lagu marti qaaday ciyaarta wadamada Jaamacadda Carabta oo bishan bilowgeedii ka dhici lahaa ama ka dhacay dalka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegayaa in Soomaaliya ay ka baaqatay ciyaarahaasi waxaana la sheegayaa in ay jiraan sida la sheegayo in loo diiday ciyaartaasi inay ka qayb galaan gabdho Soomaali ah oo dibadda ka tagay oo doonaya inay ku ciyaaraan magaca Soomaaliya ama Soomaaliya ay matalaan markii Soomaaliya cid ka socotay halkaasi taga weyday haddaba Saalax Umar Xasan Saalax Dheere oo ah nin suxufi ah arrimaha aadna uga hadla arrimaha la xiriira isboortiga ka faalooda ayaa stuudiyaha Universal TV ee magaalada London aan ku wareystay waxaana uu Saalax degan yahay wadanka Holland waxaana ugu horeyn weydiiyay bal inuu faahfaahin naga siiyo sida ay wax u dhaceen waayahay Saalax waxaan jeclahay marka hore balna ku weydiiyo arrintan la xiriirta kooxda kubadda koleyga ka qayb gali lahayd ee gaar ahaan gabdhaha ah ee Soomaaliya matalayay ayaa la sheegayaa inay ka baaqdeen ciyaarihii wadamada Carabta ee lagu qabtay dalka Imaaraadka Carabta faahfaahin iga sii bal sababta aad isleedahay arrintan way u dhacday ayaan la horto gabdhaha Soomaaliyeed ee kubadda koleyga ay ka qayb gali lahaa ciyaarihii wadamada Carabta ee ka dhacay magaalada Shaarikha ee wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta kama aysan baaqanin wadankaasi waxa la geeyay gabdho Soomaaliyeed oo laga keenay wadamada Mareykanka iyo wadan kamid ah ee qaaradda Yurub laakiin gabdhihii iyagoo jooga wadankii aysan u suura galin inay ciyaarahaasi ka qayb galaan sababahaasna waxa la xiriira runtii dhinaca maamulka Olompikada Soomaaliyeed ee xiriirka kubadda koleyga oo kala soo dhaxgalay aragti duwanaansho iyo maamul xumo dhaxdooda ahaa taas ayaana sabab u noqotay inay gabdhaha ciyaarahaasi ay ka qayb gali waayeen iyagoo jooga markaa wadankii isu tagay Imaaraadka Carabta koox diyaarsan oo gabdhaha oo Soomaaliya u matali lahaa ma jirin ciyaaraha noocaas oo kala runtii ciyaarahan Soomaaliya waxa lagu soo marti qaaday waqti aan dhaweyn sida aynu ku aragnay warqado ay isdhaafsadeen ee Olompikada Soomaaliyeed iyo Olompikada ee wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta laakiin qaladka waxa uu ka dhacay dhinaca Olompikada Soomaaliyeed oo aan xiriirka kubadda koleyga ku wargelinin in ciyaarahaas laga qayb galayo waqti aad u fog waxayna ku wargeliyeen iyadoo ay ka dhiman tahay wax ku dhow 2 week oo kale marka jawaabta ay bixiyeen maamulka xiriirka kubadda koleygana wuxuu ahaa inaysan diyaar u ahayn in waqti ku dhow 2 week gudahooda ay ku diyaariyaan ciyaartooy ka qayb gali kara ciyaarahaas kadibna waxaa dhacday in xubno kamid ah guddiga Olompikada Soomaaliyeed ay ciyaartooy ka diyaariyaan dibadda taana ay ka wadaan dibadda oo ay geeyaan wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta laakiin qoraalo ay kala duwan oo kasoo kala baxay xafiiska xiriirka kubadda koleyga iyo xafiiska Olompikada Soomaaliya ayaa iswaafaqi waayay taa darteedna waxay markaa guddiga jaamacadda guddiga Olompikada ee wadanka isu tagay Imaaraadka Carabta ay go'aan ku gaareen in ciyaartooyda laga keeno wadanka Mareykanka ee Yurub ee gabdhihii Soomaaliyeed ee ku sugnaa wadanka Shaarikha inay dhahaan hoteeladiin waa degnaan kartiin laakiin kama qayb gali kartiin ciyaaraha dhacaya maadaama aysan haysan ogolaansho rasmi oo Soomaaliya oo xiriirka kubadda koleyga Soomaaliya ka yimid marka Saalax khibradaada markaad eegto sawirka noocan oo kala ah maxay bixinaysaa maxaa laga dareemayaa wadanka Soomaaliya marka loo fiiriyo arrintan in ciyaartan ka qayb gali lahaayeen sababta iyo sawirka kaaga baxaya arrintaas ma ku muuqanaysaa inay tahay in aan jirinba qaran isku diyaarin kara waxyaabaha noocan oo kala oo yar hadayba sidaan u dhacayaan runtii ayaan loo Soomaaliya runtii waxyaabaha ay ku fiican tahay waxa kamid ah ciyaaraha kubadda koleyga kale waxaanu xasuusanaa ciyaarihii ka dhacay wadanka qadar oo kale gabdhihii Soomaaliyeed kubadda koleyga ay ka keeneen guulo aad u muhiim ah ciyaaro kale oo wiilasha ay ka qayb galeen oo Afrika ay guulo muhiim ka keeneen laakiin waxaad moodaa in ay maamulka xiriirka kubadda koleyga dadka ku jira iyo dadka qaarkood ay kamid ah dadkii hore ee kubadda koleyga aysan wada shaqeyn buuxda aysan lahayn iyadoona xilligan ay khilaafka hadda jiro uu yahay mid u dhaxeeya maamulka kubadda koleyga iyo maamulkii sare Olompikada Soomaaliyeed waxayna ku wanaagsan runtii in la wada shaqeeyo si ciyaarahan oo kale loogu qayb galo runtii fursad aad u weyn ayaan u ahay Soomaaliya inay ciyaarahan ka qayb gasho maadaama tasiilaadka ciyaarahaas lagu qayb galay ee Soomaaliya laga bixinay laakiin dhibaatada waxay ka dhalatay wada shaqeyn aanan u dhaxeynin xubno kamid ah dadkii hore kubadda koleyga ku jiray iyo maamulka xiriir kubadda koleyga Soomaaliya eeda yaala marka Saalax arrintan inay dhacdo yaa eeda iskale dadku ma wada laha eeda yaala eeda oo gaar ahaan yeelanaya markaad eegtay qoraalada la isdhaafsaday iyo sida wax u dhaceen iyo waqtiga la baajiyay iyo dalkii oo ka qayb galin ciyaarihii runtii eeda ani waxaan isdhihi karaa guddiga Olompikada Soomaaliyeed ayaa iskale maadaama guddiga Olompikada Soomaaliyeed ciyaarahan lagu soo wargeliyay waqti hore ay ogaayeen
waxaa muhiim ah inay ku wargeliyaan xiriirka Soomaaliyeed ee kubada koleyga si xiriirka Soomaaliyeed ee kubada koleyga isugu diyaariyaan inay ciyaarahan ka qayb galaan laakiin dib u dhaca waxa keenay maamulka Olompikada Soomaaliyeed oo aanan ku wargelinin xiriirka Soomaaliyeed ee kubada koleyga go'aanka ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubada koleyga qaadatay oo ahaana inaysan ciyaarahaas ka qayb galin wuxuu ahaa go'aan marka la fiiriyo sax ahaa maadaama aynan xilligaasi diyaar u ahayn in lagu diyaariyo ciyaartooy ka qayb gali karta ama guulo ka keeni karta marka aad waxaan isdhihi karaa waxa iska guddiga Olompikada Soomaaliyeed si kastaba haddana meesha waxa la keenay dhalinyaro dumar gabdho Soomaaliyeed oo dibadda laga keenay cidii doonta ha keento oo inkastoo si nidaamka loo marin haddana doonaya inay Soomaaliya matalaan haddii marka qalad dhacay ma waxay ahayd in qalad kale laga dulgeeyo la yiraahdo cidna matalaysa ma jirto maxaysan noqonaysaa moralka iyo niyadda dadka u soo safray Soomaaliya inay matalaan runtii dhinac marka laga fiiriyo moralkaasi iyo wixii dhacay runtii waxay keenaysaa niyad jab aad u xoogan oo ku yimaada ciyaartooyda Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Yurub aan dhaho iyagu la soo waday hooyooyinkooda laga soo waday meesha la keenay mustaqbalka xataa waxay keeni kartaa dhibaato aad u xoogan maadaama xilligaana la soo waday ciyaartooy hooyooyinkooda fasax soo qaatay marka sanadaha soo socda hadii ay noqoto in laga dalbado hooyadii Soomaaliyeed ee shalay ciyaartooy laga soo waday gabadheeda in duwel la keena aan ka qayb galin ciyaarihii berito markii laga codsaday in ciyaaro kale ka qayb gasho runtii waxay noqon kartaa dareen aad u xun waxa la dhihi karaa shalayba waa tii aan ka qayb galin ciyaarihii maantana tiyo kala dhici karta marka waa tahay kaas wuxuu ahaa Saalax Xasan Cumar oo ah khabiir xagga isboortiga isla markaana ah wariye arrimaha isboortiga aad uga faallooda